بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كسر هذا إن شاء الله تعالى ودرسي إني لحاد وناقة ينوضع قيسك. الحمد لله سن درسي إنه هو رأسوق هذا الني والله ليل وحن رجعني إن شاء الله تعالى إن أويهي جورك إنه يهي عباده إله اللي قد دواني ما دام عباده إله اللي قد دواني إني تهاي وحوي وإن برنا جورك أرمها الحريرة سئل وقال عبادة داس أنفلين إنه إن إله نقبل الله جل وعلا أينا أبورته وحنو أبورته وعباده عبادتنا وحكم إذا وادين يشيء ما أنت دويد عنستا عبستا صعدك وحي أردن طريقة أردن بالنبي جينا سبحان صلوات ربي وسلام عليه وحنا تصي سيد غير لو دقيلها ما دام سيد غير لو دقيلها أي تهاي لبا الريموت بأدي أد وناكسن إن أنا مركا أنت أنا جورسن كور أنا وجانو لبا الريموت وحوي سان نشجع وحوي هرت ما أنت دويد وحنا نقولي الله جل وعلا ما دام وكدق عباده وناق مركان شاقينا ووح في عن وناق قاسا إله جل وعلا وحليه وناق قاسي عبادة إله لو قد وانيو إنا نسكع والنوي الله جل وعلا محو القرآن كنا نقول شاقا وحيدي وتعاونوا على البر والتقوى اسكو عاوية وناقة يعب سيدة إله ولا تعاونوا هيسكو عاوننا على الإثم الدنبقة والعدوان هي عذاوذ maxaa meesha ku jirta waxa ku jira wanaag la isku caawinayo ilaahay loogu dhawaanayo waxa weey wanaagii sidii loo wada dhaqi lahaa reerku wada joogi lahaa oo ilaahay ugu dhawaan lahaa laba arimood baan waxaan idhi yaa muhiim ah inaan ogaano horta mid horeysa waxa weey waxa isku keenay labada qof ninka raagta waxa isku keenay waa baahidaasina nin walba uu baahan yahay waxa weey baahidaas ayaa la rabaa inuu ilaahay ugu dhawaado maantii dhow waxaan sheegay waxaan ugu yiri waxa weeye wanaagu waa wuxuu ilaahay ka rabo inaad samaysid xumaantuna waa wuxuu ilaahay ka nahayay maadaama ay wanaagu ay tahay wuxuu ilaahay ka rabo anigii ilaahay waxbuu iga rabaa qoftii dumarkaan ilaahay waxbuu ka rabaa anigii ilaahay cibaado iga rabaa qoftii dumarkaan ilaahay cibaado ka rabaa lidalik marka maxaa la rabaa cibaadada ilaahay naga rabay labadeena ayaa waxaan isku darsanaynaa ninkii naagtii baa isku darsanayo waxa isku darsanay waxay leeyihiin walaalo ilaahay jalla wa ala maxaan ugu dhawaanaynaa waxa way waa guurka ilaahay maxaan ugu dhawaanaynaa waa salaadii ilaahay maxaan ugu dhawaanaa soonkii ilaahay maxaan ugu dhawaanaa sadaqadii intii oo dhan ayaa labada dhinac aan isku soo darsanay si aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu marka iyadoo sidaas ayaa nala waliba ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku keen daray ayaa mid walba wax laga rabaa sidoo u fulin lahaa ayuu ilaahay jalla wa ala uga dhigay mas'uul baahid iyadoo jirta ayaa haddana mas'uul buu uga dhigay oo labadii dhinacba ninkii ragana wax mas'uul buu waxa ka yahay qoftii dumarkana dhinacba iyaduna mas'uul ka tahay marka maanta haddii ilaahay ila tawfiiq ba allahna waafajiyo maadaama labada arimood ay tahay mid ugu horeysa taageerada labada qof ay taageerayaan oo maxay isku taageerayaan waxay isku taageerayaan cibaadada ilaahay nagu anfaco waxa isku taageereen cibaadada ilaahay marka iyadoo sidaasina waxa haddana ay qaadanayaan qof walba wuxuu qaadanaya anigu qaybtayda mas'uuliyadda aan ka ahay waa inaan ka soo baxaa iyaduna qaybteeda waa inaan ka soo baxda maanta marka waxaan rabaa inaan insha Allah ta'ala ninka ragga ah mas'uuliyadiisa qaybtiisa inuu ka soo baxo maxaa meesha ku jirta isaga ilaahay wuxuu ka dhigay qawaam ninka meesha guriga dhan loo dhiibay way laana isagii baa bilowga bilaabay oo baahidii ugu horeysay isagii baa qoftii u baahday oo baahdi wuxuu tagay gurigoodii uu ka soo qaaday maadaama uu ka doonay gurigoodii uu gurigiisa keenay waxa weey wax walba ay ku helaysay gurigooda waa inay ka heshaa isaga wax walba ay gurigooda ka helaysay gabadhu naxariis ha noqoto jacayl ha noqoto maxaan ku dhaad daryeel ha noqoto ixtiraam ha noqoto maxaan ku dhaadaay kalsooni ha noqoto intii oo dhan waxa laga rabaa ninka ragga ayadoo saas looga rabo ayaa waxa weeye nabigeena subhanahu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu ka dhigay ninka ragga meesha maadaama isaga ku soo wareegaysa arrimo badan oo ka mid tahay dhaqaalaha oo ka mid tahay maxaan ku dhaadaa macasharo fiican wuxuu ilaahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wulay kullukum raa'in gabigi min raa'ibatin wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi
وحكدي جاي نكي رجعها مسؤول عن رعيته قولي لنا أيها لو سورجي لبع ريمون ولا سي لبع ريمون ولا سي وحوي نفقة دي هي معاشرة دي ونكسند نفقة دي هب حقيقة وإنه حضنا وقدرة معاشرة ونكسن وسودوين ما هي نوصل أنا لعقت بحقيقة أنا قاعد حوق كم معمول يقولي كم معمول حوق ومبحنا هل كان معاشرة ده ونكسن بيدين والمرأة راعية في بيت زوجها النظم بيسو درسي صوص على هذا كدق عدي لها هذا قفت الضمر كان حق يد وحي كل هذا وحنيك إما كمان أنت وحكاه الله وحوي وحق الضمر قفت نينك رجع كل هذا نينك رجع وحل يقولي ولا لا أنا أديك وحنا يقولي وعلى الوضع الريموت نفقدها ورعسين هاي مهاركو أي لين على بعض يوم معاشرة حسنة يوم معاشرة وناكسن سود وينتا دريالي ده والله عدينتا محن كل هذا يعني كورحينتا ونحرسها حريرك الحريرين أيو احترامك أنت صرت ماسكين لونا توفيق ده الله أنا وافجيه رجع الصوماليات ما شاء الله ويد ذاليا هل بيكون في عين نفقة إن نفقين وحين الأيام با قولك الدنبا إنه جورك الدنبا ويه نفقه خير الله كسي خير الله نصير لمانتين وحوي ولا خير الله كسيه وحن الجاربة عادية نفقة عسين الراعي وناك قولي مركز سوق جلس كسوقل لو العدين كذب قفتي دريال تاسي وحوي وقيبتي لبعض نفقة واتوشق قيس الحمد لله نفقة دي بعضو هيسا وادو تمي قولي حدنا دينتين وحينا أمر هيسا إن هدنا وجود ضرو أنا إذا مركب بحنينه إن نكون بحنه قلبي في عن وقلبي ونكسه لذلك ولا كيف مسلم كان توفيق الله نوافجيه ما دام أي مسؤولية ده صلابتها مسؤولية ده نوتها غير كذا وحنا نجرب أين نكبره إن نكبره غير كني حدي أن ربنا إنه محن كل هذا وناق وكنا ولاده ما دام أن وناق رادينينه ما دام أن ربنا إنه وناق كل السنو ما دام الدرس جين ويه الدرس وناق قصة أبسن وإن وناق نلقاه وناق نلقاه لينا لبضنا مركز درت يدبا نبي جينا صوب من صلوات ربي وسلام عليه مركب محولي هاي مركب أولي هاي حضني كوني مادو لبا الرماد حوق سارة بير فيري لبا الرماد إيش أكو هاي حدا كهشانا نكا كسر دوية قبل دينا قعنت وصار ما هاي تهاي لبا داسي الرماد حولي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينهم حدي ويديني مادو دينتي سعد كهشان دينتي سونا جيدا صلاة ديسا عبادة ديسا إلهي نودوي هاي أنت سكر وح العركيو محاكو هاري وحوي بقلبي وحكا صوب حاجرة قعنتيسا نحريستيسا قلبي صفورا تاسو دنبا ليد هذا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مركل الشيء وناقم محويها وحمانتم حيتها مركل ليد قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال صلوات ربي وسلامه عليه البر حسن الخلق بري وناقو وأخلاق ده وناكسن بلي النبي عليه الصلاة والسلام الله نقو أنفعه إلهي جل وعلا وعن كبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ده وناكسن نصيه أخلاق ده وناكسن ولي بدأنا إن قاركود نبى واحد سكجر قاركود بني آدم قار واحد جته واحد لي هذا علم النفس واحد لي هذا تو personality دو أخلاقيني أخلاق بنانك لو قلنا ولادو ما شاء الله سودوين تنيكات وحلا جاي يا برجع قاركود بنانك مركز جوجان ما شاء الله سودوين تين مركز قولي جاي مادنا وابا ماسكله نين كلوي تاسين لقى مرة وحنا لقى ربا خير الله كسيئه وحنا لقى ربا أخلاق ذا وناكسن وليه النبي عليه الصلاة والسلام وحنا ليه صلوات ربي وسلامه عليه دتك يقولوا ما أنت قيامه ودتك وجو أخلاق وناكسن دبرين مركز سوق اللي يصير هيك كاغا سودوين سودوينيست محن كل هداي هدية ده كينيست محن كل هالدريال كالدرياليست الله هذا ولا علي أباي محاكو در محاكو قبتها سدال لو حيا إن نيران ولا علي يالو توفيق الله أنا وافج نفقدنا ما كون في عنا هاي وان بحنا وحنا لقى الربو ما نربنا إن محن كل هذا اللي يداه هبل ماركيسا ويل كيسي بلا كابوس على هبل ماركيسا حاس كيسون تاسي وحوي شرفتي إنك متى شرفتنا أن كدر توفيق الله أنا وافجيه أن كدر إن نيرانو أنا جا كو مقن أنا كو محاكو در تاسي ولا لا dhibaatooyin ka dhaca waxa kamid ah markay rag maxaan ku dhahday gabdhaha guursadaan dhibaatooyin badan ayaa dhaca oo furista ku dham ma taqaan xaalkeeda
gabadhii shalay aad jecleed eed maxaan ku idhahdaa waqtiga ugu imanaysa wax walba u soo dhaweynaysa ayaa markii ay guriga ku soo wareegto khalaas farahay ka baxday way soo gasho waa haweeney guriga joogtaa maaha haweeneyda waxay u baahan tahay in lala hadlo haweeneyda waxay u baahan tahay in maxaan ku idhahdaa la ixtiraamo haweeneyda waxay u baahan tahay in la soo dhaweeyo intaasoo dhan akhlaaqdu sheegin akhlaaqday ka mid tahay waxaan ka hadlayo mas'uuliyadda labada arrimood nafaqada iyo mucaashara alxasana waxa ka mid ah inaan ka war hayno inaan ogaano in xaaladdu marka aan kuu sheegay aan leeyahay ninka ragga marka soo galiyaan kadib bil kadib 2 bilood kadib ayaa marka qaarkood ay dhacaa furis cays maxaa dhacday qoftii waan sidii aan ugu yimid sidii ay ahayd marka hore jacaylkii ay jecleed sidii ay ahayd maba ogaba waxa ku dhacay isbedelka ku dhacay walla ayso dhibta ay soo gashay wixii oo dhan ba aniga ka dambeeyay isaga ka dambeeyay ala dalik laakiin iyadu xaalkii uu sidaa noqday ayaa dhibtii iyo daryeelkii iyo wixii oo dhan uu ogyahay waxa ma ka maqan laakiin wuxuuna weydiineen iyaga oo mucaasharat alxasanati ayaa ka maqan wara tawfiiqda Allahna waafajiyo waxaan laga rabaa walaalayaal in labadaas arrimood maxaan niri mas'uuliyadda ninka ragga maadaama uu guriga isagu ka mas'uul yahay guriga uu keenay guriga kiradiisii markii la weydiiyay nabiga kaleey salaam ma xaqu nisaa calayna buu yiri min saxaabiya xaqa ay nagu leeyihiin maxay tahay wuxuu yiri nabigu kaleey salaam anta an tut'imha ma tut'imuhu waxaad adigu cunaysid inaad cunsiisid هذا خير الله نصير وحي النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إن عنسيسي واحد عنيسي وأن تلبسها إن أحدد واحد أديك حرنيسي وأن تسكنها إن أديك محاكل ماشي أديك دقيس إن دجسي أنت سوى كم التهي ومحاكل هذاي ونفقدي هي مهر كذي كان كلنا وحويه أرنت لبعضنا وحويه إن soo dhaweynta aad soo dhaweys inaad maxaan ku raadahay waxa kamid nabigeena subhan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu sheegay wanaaga uu sheegay wuxuu kamid dhigay in aad maxaan ku raadahay aad cuntada afka u gelinaysid waxa kamid tahay laba isku wata weey waa maadiga iyo macnawiga inaad maxaan ku raadahay markaad afka aad wax u gelinaysid inay kamid tahay wanaaga uu qofku qabanaya waxa kamid tahay tasbiixda oo kale waxa tahliish oo kale intaas oo dhan kamid tawfiiqda Allah nagu anfaco ilaahay jalla wa ala waxa ilaahay ka baryayna إن الله سبحانه وتعالى نوقف أنفعه مسؤولية داس مسؤولية إنك رجع ولا ليال أنت تقول سنكار إن أسفي عن برتاوي درس جينو أنت معها وانسي وضيع هدي إلى هاي هذا مسؤولية ده نقص النقنية إنك رجع أولي هاي إلهي إذن كي قفت الدمر كاي كل هذا بريتو إن شاء الله تعالى وحب الله بدونا مسؤولية ده قفت الدمر كا وكل هاي إنك رجع وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.